qornay. safarka madaxweyne Silaani ugu maqnaa dalalka Itoobiya iyo Ingiriiska ayaa qaatay muddo ku siman 3 toddobaad waxaanu xusay inuu kulamo la yeeshay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska iyo mas'uuliyiin ka tirsan Itoobiya oo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya. anigoo mutulaba taliye casha ka maqnaa muddada aan maqnaa dalka Itoobiya markii hore si maray halkaas oo dawladda Itoobiya isku aragnay kana wada hadlay danaha labada dal kabacdina aanu gudbay dalka Ingiriiska u gudbay halkaas oo aan muddo fasaxa ku maqnaa aan bulshada reer Soomaaliland halka joogtana iyagana aan fursad u helay inaan qayb badan oo kala duwan aan la kulanno oo aan la ciidno oo aan kala hadalno danaha dalka iyo baahaya iyo waxa sheeganayeen iyaguna ay noo sheegeen taageerada dalka iyo dadkana aan ku guubaabinay taageero wariyo niyad wanaagsan ummadda iyo dalka dadka muujinayay muddada fasax baan ku maqnaa fasax wanaagsan waa soo qaatay farxad weyn weeyteena dalkii hooyo ku soo noqdo. geesta kale afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleeman Duxul ayaa is hortaagay su'aalo ay warbaahintu doonayeen inay weydiiyaan madaxweynaha. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.